Assalamu alaikum. I'd like to pass on my warmest wishes to everyone celebrating Ciidul Fitr. السلام عليكم دمان بمسلمين تكونوا العالم كا waxaa idin rajaynaa inaad ku ciidaan bashbash iyo barwaaqo waxaan ognahay inay tahay maanta maalinta Ciidul Fifriga taasoo ah mid idinka muhiim idin ah waxaan kaloon ognahay xanuunka COVID-19 inuu wax u dhimayo farxadiina iyo isku soo bixina balse waxaan idin rajaynayaa bashbash iyo barwaaqo gaar ahaan wadanka New Zealand iyo muslimiinta ku dhaqan caalamka waxaan idin rajaynayaa bashbash iyo barwaaqo wadanka New Zealand hadda waa mid degan oo nabada kadib dhibaatadii ka dhacday waxaan la dagaalamayna aan ka soo horjeednaa midabta koorka iyo diin nacaybka tani waa ra'iisul wasaaraha wadanka New Zealand. Assalamu alaikum. Today Muslims in Assalamu alaikum. maanta waa ciida islaamka waxaana ciidaya dhammaan muslimiinta ku dhaqan caalamka iyo Canada ciidu waa maalin taasoo ay caabudaan bulsho gaara balse waxaan u hambalyeynayaa muslimiinta ku dhaqan caalamka waxaan leeyahay nabad ku ciida wadanka Canada wuxuu la dagaalamaa muslim nacaybka taasoo loo yaqaano Islamophobia balse waxaan leeyahay ku ciida bashbash iyo barwaaqo muslimiinta ku nool caalamka waxaan idin leeyahay ciid mubaarak kana waa ra'iisul wasaaraha Canada Justin Trudeau.